sidaad la socotaan dadka Soomaalida waxaa jira dad fara badan oo magac iyo maamuus ku leh bulshada badankooda waxa weyn qaar fara badan oo waqtigooda u horay sidii ay u noqon lahaayeen qoraa gabaya waxa weyn qayb kasta oo nolosha ay ka qayb qaadan lahaayeen markan waxa weeyaan waxaan u yeerayaa IfrahHussein oo ah gabar Soomaaliyeed oo wadanka Canada inooga timid oo qoraaya oo gabayada afka Ingiriisiga ku gabayda waxa weeyaan sanadkii 2017kiina waxay noqotay gabadh loo aqoonsaday inay tahay qofka halabuurka ee ugu fiican ee bulshada Soomaaliyeed ku dhex jira oo lagu aqoonsaday marka waxaan jeclahay Ifrah oo aad u dheertahay taariikhdeeda waqtiga oo kooban inaad ila soo dhaweysaan IfrahHussein dhulkaygiyo kiilaygu dhalayoon ku dhaqaaq bartow ka dhoofi maaye dhankaloon qalaad kuwaan dhaafsan maaye inta aanan dhiman layka dhexgeline inta aanan dhiman layka dhexgeline dhaar waxaan ku marayaa inaan ku dhintayo ka dhiciya cadowgee Boorame iyo Hoosingo inta u dhaxaysa waa barwaaqo iyo burbur inta u dhaxaysa waa farax iyo rag isbaabi'inayaan jacayl iyo farax inta u dhaxaysa waa wanaag iyo dhiikar geeska Afrika inta ka dagan waxa isu keenin ma Ilaahay u keen lahaa bash iyo barwaaqo waa ilmo bistoolo bayskiilkooda ku wataan dhiig waxaan ahayn ma naqaana anaku ragga Soomaalidu dhiig waxaan ahayn may yaqaanaan indhahayga daaleen oo hinteena meel dheer laga eegayo ilaahow ducadana noo aqbal amiin. For those who do not know Somali, I will say it in English. What is between the cities of Borme and Hoosingo is prosperous and broken. What is between that is happiness and men executing one another. What is between love and happiness is felicity and high blood pressure. To those who live in the Horn, would God bring upon them what they have not already brought upon themselves? Goodness and prosperous are children with ammunition wired to bicycles. Do we know anything that isn't blood? Do Somali men know anything that isn't blood? The eyes are tired. The eyes are tired. The eyes are tired. And our tears are apparent from distances. God, please accept our supplication. Amen. So I am from the city of Toronto, Canada. And usually when I am performing my pieces, I wear hiddi idaqan and I walk across the room and share space. But my mom said, Ifrah, I don't like when you don't use microphone because wa qaylan haysa and qof qaylidada maqlaya iska yar. Nobody wants to listen to your qayla. And she said, you know, Ifrah saasa da u qaylinayso. Qofku guursanaya iska yar. I said, Hoya, it's performance art, but you know, mashallah. I just completed a North American tour called the Heavy Caravan Tour, and alhamdulillah, it was amazing. And thank you, Minnesota, for sharing space and for being beautiful. We speak diasporic tongues and we breathe the sands of Kismayo, Galkayo, and Bur'a. We burn in the same fires of our kinfolk. Who knows the civil war like my mother's feet and my father's eyes? I speak in the civility of Somali poetry,
And when a woman is mourning, she brings her hands up to her head and says, Allahu gayay datkani mahasan ugubay. Oh God, what has burnt our people like this? Who knows the civil war of 91 like the farmers who created life in the nooks of Organica? Of men and women who come together in Jandair and Danta and sing with their lungs. Hey, 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 lele hobala ye hai hey, 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 lele hobala ye hai hey, hey, hobay labayo is hashaqa ye hey, hey, lele hobala ye hai. Thank you, Minnesota. A pleasure. يا سلام مكاشن yeah yeah you know waxaynu noqonay